Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wanaagsan. Qodobada wararka ugu maqli doontaan warkeena waxaa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay ee wadahadallada doorashada fila Soomaaliya oo diiday in shuruud lagu xiro fulinta heshiiskii 17 Sebtembar. Shirkii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo maanta dib u bilowday. Madaxweyne Farmaajo iyo madax goboleedyada oo isfahan ka gaaray qodob aad la isugu hayay. qodobka dibadda aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Sacuudiga oo shuruud ku xiray gudashada cumrada ee bisha Ramadaan. Qodobada ayaynu qadaadigi doonaa hadduu raalli ka noqdo kusoo dhawaada faahfaahinta warka. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta lagu wadaa in ay dib uga bilowdaan wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. Wadahadallada oo hakad geliyay labadii maalin ee ugu dambeysay ayaa qorshuhu yahay inay maanta dib uga bilaabato teendhada afisyoon ee magaalada Muqdisho. Intiisa badan waxaa kulankan maanta diiradda lagu saarayaa ajendaha shirka arrimaha wadatashiga doorashooyinka iyo diyaarinta dhinacyada ka qaybgali lahaa. Dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay wadahadallada siyaasadeed ee ka socda teendhada afisyoon. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa ka biyo diiday in shuruudo hore lagu xiro fulinta heshiiskii 17 Sebtembar, kuwaasi oo dib u sii dhigi kara wadahadallada haatan socda. Si kastaba, Soomaaliya ayaa ku jirta xaalad adag oo kala guur ah, waxaana si aad ah la isugu hayaa hanaanka loo wajahayo doorashooyinka 2021 oo ku yimid dib u dhac baahsan. Madaxweyne Farmaajo iyo madax goboleedyada ee ku shirsan teendhada afisyoon ayaa maanta isfaham ka gaaray mid ka mid ah qodobadii ugu adkaa ee la isu hayay, sida ay inoo xaqiijiyeen xubno aad ugu dhow qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada. Dhinacyada shirka leh ayaa isku fahmay mabda ahaan in la ballaariyo shirka soo socda, isla markaana ay kasoo qayb galaan saamileyda kale ee dalka ee aan horey qaybta uga ahayn. Dhinacyada ayaa isku fahmay in furitaanka shirka soo socda ay ka qaybgali karaan gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka, madaxweynayaashii hore ee dalka, ra'iisul wasaarihii hore iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Qodobkan oo ay soo jeediyeen Siciid Dani iyo Axmed Madoobe ayaa ahaa mid uu aad uga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana hadda muuqata in madaxweynaha uu tanaasul kadib maalmo badan oo la isku fahmi la'aa uu sameeyay. Arrinta ka qaybgalayaasha shirka ayaa sidoo kale ka dhigan inuu halis ku jiro heshiiska 17 Sebtembar oo dowladdu iyo beesha caalamka ay doonayeen in lagu saleeyo heshiis kasta oo cusub oo la gaarayo. Maadaama xubnaha cusub ee ka qaybgalaya shirka aysan qayb ka ahayn heshiiskaasi, waxay ka dhigan tahay in dib loo doodi doono. Qodobada kale ee ilaa hadda heshiiska aan laga gaarin waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya inuu saxiixo warqadda xilgaarsiinta, awoodana ku wareejiyo xukuumadda, amniga doorashada iyo in tallaabo laga qaado taliyayaasha ku lugta lahaa wixii dhacay weerarkii 19 Febraayo lagu qaaday mucaaradka iyo dibadbaxayaal. Kulamada ayaa sii soconaya ilaa inta guud ahaan laga xalinayo qodobada kale ee la isku hayo si loogu daro ajendaha shirka guud ee wadatashiga. Shirka afisyoon ayaa barqanimadii maanta dib u furmaya kadib 2 maalmood oo uu hakad ku jiray. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa diiday in shuruud lagu xiro shirka maalmihii u dambeeyay ka socday afisyoon, kaasi oo maalintii Axadda hakad la geliyay kadib markii maalinkii labaad ee uu shirka dhacay uu soo dhammaaday iyada oo aan wax heshiis ah la gaarin. Madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo madaxda Puntland iyo Jubbaland oo dhinaca ayaa isku haya qodobo dhowr ah oo ku aadan ajendaha shirka, waxaana qorshuhu ahaa in dib loo bilaabo maanta si la isugu fahmo, inkastoo uu haddana baaqday. Waxaa qodobadaasi ka mid ahaa yareynta awoodda madaxweynaha ee xilliga kala guurka, weerarkii 19 Febraayo lagu qaaday dibadbaxayaal iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha, iyo in la ballaariyo ka qaybgalayaasha shirka. Hase yeeshee, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa diiday in xilligan wax shuruud ah aan lagu xiri karin fulinta heshiiskii 17 Sebtembar ay madaxdu kala saxiixdeen si dalka loogu jiheeyo doorasho heshiis lagu yahay sida uu sheegay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii ay socdeen kulamadii u dambeeyay waxa uu diiday dhammaan qodobada ay wateen Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ee ay doonayeen in ajendaha shirka wadatashiga lagu soo daro, taasi oo keentay ismariwaa aad u weyn. Madaxtooyada ayaa doonaysa kaliya in laga wada xaajoodo qodobadii heshiiska Sebtembar 17 ahaa. Hase yeeshee, Jubbaland iyo Puntland ayaa ku doodaya in dowladda ay kadib qaaday tallaabooyin carqaladeyn ah ayna tahay in laga wada hadlo.
go-aanka fila Soomaaliya iyo shuruudaha Siciidani Axmedoobe ayaa sii dheereyn kara ismariwaaga dhinacyada ishaya xilli ay beesha caalamka muddo ku dhow bil magaalada Muqdisho ku hayso madaxda Jubbaland iyo Puntland oo ayagu diideen hanaanka doorasho ee dowladda waqtigeeda dhammaaday. Waxaa hoos u dhacay darajada laga qabay in isfaham guud oo lagu galo shirweynaha doorashada laga gaaro kulamada Afisyooni, mana cadda in beesha caalamka oo gadaal ka riixaysa wadahadalladan ay si toos ah u soo faragelin doonto. Dowladda Boqortooyada Sacuudiga ayaa soo saartay shuruud hor leh oo ay ku xirayso dadka caalamka kale ka imaanaya ee doonaya inay tagaan cumrada iyo kuwa salaada ku tukanaya masjidka xaramka laga bilaabo bisha Ramadaan. Wasaaradda Xajka iyo Cumrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kaliya dadka iska talaala cudurka coronavirus loo ogolaan doono inay tagaan cumrada. Sidoo kale waxaa bayaankaasi lagu sheegay in 3 nooc oo dad ah loo arki doono: kuwa talaalan, kuwa qaatay 2 goojo ee talaalka, kuwa qaatay 1 goojo ugu yaraan 14 maalmood ka hor, iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka ee kasoo bogsaday. Shuruudaha oo ay wasaaraddu sheegtay inay dhaqan gali doonaan bisha Ramadaan ee bartamaha bisha Abriil ayaa waxaa xilligaasi wixii ka dambeeyay loo ogolaan doonaa dadka talaalan oo kaliya inay gutaan cumrada ama ay salaad ku tukadaan masjidka xaramka iyo masjidka Nabiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Siyaasadan cusub ee uu soo saaray wasiirka cusub ee wasaaradda Xajka iyo Cumrada ayaa si faahfaahsan loogu sheegin in shuruudahani ay ku eg yihiin oo kaliya inta lagu guda jiro Ramadaan, mana cadda haddii siyaasadan lagu dabaqi doono xajka. Tani markii uu bilowday cudurka coronavirus waxaa hoos u dhacday dadkii tegi jiray xaramka, waxaana xajka 2021 ka qayb galay kaliya 10,000 oo qof oo ahaa dadka degan Sacuudi Arabiya, taas oo aad uga yareyd ka qaybgalayaashii 2019 oo ahaa 2.5 milyan oo qof oo ka kala yimaanayay daafaha caalamka. Guud ahaan inta aynu kusoo gabagabaynaynaa warkeena maanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.